asalaamu calaykum waad salaamaya asxaabta waxaan rajeynaya inay maalintaadu nabad ku bilaabantay ku soo dhowaada muuqaalkeennan haddii ay tahay markii koowaad aad soo booqatay youtube-kan magacaygu waa cabaas jaamac cali waxaan ahay macalin dhiga luuqadda ingilishta haddii aad tahay qof hore ugu xidhan youtube-kan ama se aad sabskaraib oo kuu saarnaa waxaan kugu dhiirigelinayaa like aynu markaa usoo daadegina cashirkeennan hore waxaynu soo gelinay youtube-keennan muddo aan aad u fogeyn korsho cusub oo ahayd barashada luuqadda ingiliishta isla marhaanta waxaynu soo gelinay labadii cashar ee u horreeyey casharkan waa kii saddexaad haddaba casharkan waxaan kaga hadli doonaa haaf iyo haas maxaa loo kala isticmaalaa isla marhaanta waxaynu eegi doonaa sidii aad u kala siin lahayd casharkii koowaad waxaynu ku soo qaadanay haddaan dib kuu xasuusiyo magacyaalada sida isaga aniga iyaga who she it haddaba waxaad ku baran doontaa sida haas iyo haaf ay u kala qaadanayaan toddobadan magacuyaal waayahay intaa haddaynu isla soo fahnay ardayow waxaan doonayaa inaad mid si guud iila fahanto haaf iyo haas marka laysku daro labadooduba si guud waxaa loogu isticmaalaa lahaanshiyo wuxuu qof leeyahay iyaga ayaa hadhow lasii kala saaraya oo toddobadii magacuyaal aynu kala siin doonaa taasoo midaan isla fahanay waayahay haddaba intaan akhriya meesha ku qoran markaa wuxuu yidhi to indicate si ay noogu sheegaan position lahaanshiyaha haye owner of something lahaanshiyaha shay aad leedahay ayuunbaa loo isticmaalaa hore waxaan xagga hore kugu soo sheegay in marka labadooduba laysku daro waxaad leedahay oo lagaga hadlo gaari baan leeyahay guri baan leeyahay lacag baan leeyahay waxaan leeyahay hanti badan waxaad leedahay markuu qofku is sheegayo iyadu leedahay waxaan leeyahay si guud lahaanshiyaa lagaga hadlaa intaa waynu isla fahnay waayahay halkaa wax marku marayo waxaan doonaya inaad soo eegto tusaalayaashan si intaa in ka ballaadhan aad uga sii fahanto waayahay tusaalaha koowaad iyo qaab ku dhaco aynu eegno waayahay halkan waxa ku taalla haaf waayahay halkan haaf ay ku taallo waxaa ku taalla ay iyo aniga balaas haaf halkan waxaan doonayaa inaan fahan guud kaa siiyo mid walba haaf imise ayaa la siiyaa haasna intaa la siin karayaa haaf waxa la siiyaa I we they iyo you afartaan kuu sheegay waxa aad u isticmaalaysaa maxay haaf hadda may fahantay magacyadaa soo raacay magacyadu hadday laba qof yihiin iyo wax ka badan haaf baad isticmaalaysaa hadday magacyadu cabdi faarax xamdi oo ay 5 noqdaan ama 4 waa haafad siinaysaa oo xamdi ama saynab ayaad odhanaysaa haaf an exam imtixaan ayay gelayaan haddii intaa waan isla fahnay haas ayaa timi haas inta soo hadhay ayaad siinaysaa she he iyo it saddexdaas oo aad raacisay magaca keliyaata markaad leedahay jaamac haas car jaamac wuxuu leeyahay gaari magac baad sheegtay marka halkaa markaad maraysaa ardayow ee aad soo fahantay in toddobadii magacuyaal aynu ku soo qaadanay cashirkii koowaad haddaan dib kuu xasuusiyo 3 ka midana haas la raaciyey 4 ka midana haaf intaa markaad keliya waxaa cusub ee soo biiray ardayow waxa weeye magacyada magacu wixii jamac ahna sida faarax xamdi iyo 2 magac iyo wixii ka badanoo jamacay waxay raacaysaa qaybta haafta oo markaan leeyahay 2 qof magacyadood sheego 3 sheego waa inaan haaf isticmaala tusaale ahaan cabdicasiis and axmed haaf a car waxay leeyihiin gaar way waa 2 qof markaa waa jamac haddaba hadduu qofku qura yahay ka waran haastoo raacaya waayo waa keli weeye cabdicasiis he has a lot of money cabdicasiis wuxuu haystaa lacag badan intaa waynu isla fahnay muuqaalka ila dhammaysa ardayow oo ila soo eeg tusaalayaashan markaa tusaalaha koowaad ay baan tusaale ka bixinayaa waa qaybta haaftan ku horeynaya waxaan idhi I have a car gaari baan haystaa anuu gaari baan leeyahay weeyahe waayahay haddana waxaan ku xijiyey we annagu have a house guri baan leenahay annagu you adiga haye ama idinka labadaaba waa loo isticmaalaaye muxuu you have a lot of money lacag badan baad haystaan idinku ama adigu markaad leedahay lacag badan baad haystaa ee aad la hadlayso qof keliya waayahay taa waynu isla fahanay
Zainab and Safiya have exam. Safiya iyo Zainab imtixaan ayay leeyihiin. That means imtixaan ayay gelayaan weeye. Haasta qaybteedan u imanayaa she baan ku horeynayaa iyada. Waxa iyada loo isticmaalaa plus has baan kugu qoray. She has a car. Gaari bay leedahay. He baan idhi isaga haddana. He has a house. Guri buu leeyahay. Itna waa wixii markaa aan caqliga lahayn oo aynu isla gaadayno iyadana. Waayahay. It has high speed. Xawaare sare ayuu leeyahay. Manaa waa gaari oo kaleba. Zainab has a long hair. Zainab waxay leedahay timo dhaadheer. Waayahay ardaygu la soo eegataba halkan. Waxaa kaa maqan run ahaantii qaybtii ugu muhiimsanayd oo aan kusoo khatimayo oo ah isla mar ahaantaana sidaad uga dhigi kartaa su'aal. Sidoo kalena sidaad diidmo uga dhigi kartaa anigu ma haysto cunto, anigu lacag ma haysto, iyo miyaad haysataa adigu lacag, dhar miyaad haysataa, su'aal saad uga dhigi kartaa. Haddaba intaynan muuqaalka ama tusaalayaasha eegin waxaan doonayaa inaan kugu baraarujiyo 7 magacuyaal inaga xari maayaan. Ardayga aan soo daawan waxaan dhigi doonaa description-ka hoosaan dhigayaa ha soo daawado. Aad ayay inoo daba socon doonaan ardayu. Waxaan dib ugu celin doonaa casharkii koowaad ee 7 personal pronouns-ki 7 magacuyaal. 4 ka mid ah waxay qaadanayaan ardayow baan kugu yidhi have, 3 ka mid ahna has. Haddaba diidmada marka laga dhigayo waxaad samaynaysaa 4 ka mid ah oo ah I, we, they iyo you. Intaas waxay qaadanaysaa do bay qaadanaysaa. Marka diidmada laga dhigayana not unbaa lagu sii darayaa. I do not have a food. Cunto ma haysto. 3dii kalaa soo haray. 3dii kalena waxay qaadan doonaan ardayu does. Waayahay. Marka diidmada laga dhigayana not unbaa lagu darayaa. Sida tusaalahaba ka aragto. She does not have a job. Shaqo ma hayso. Intaa waan isla fahnay. Su'aasha haddaba saa looga dhigayaa. Su'aasha wax keliya aad samaynaysaa waad istaba marinaysaa ardayow. 7 magacuyaal aynu soo marnay ayaad halka dhexe dhigaysaa. Qaabkaad u qaybinaysaana waa inuu ahaadaa ardayow maxay 4tii aan kuu sheegay ee I, you, they iyo we do bay qaadanayaan. Duuda soo hormari marka. Xagga hore duuda keen. Markaad isla mar ahaanta duuda xagga hore keento ka dambaysii subject-gii. Halkaa waxaa ku yaala do I have food. Cunto miyaan haystaa? Do I have clothes? Dhar miyaan haystaa? 3dii kalena waa does. Does she have miyay haystaa iyadu maxay? Job shaqo. Do they have iyagu miyay haystaan happiness farxad miyay faraxsan yihiin? Aad bay idin salaamayaa. Muuqaalkan waa dheeraad.